waxaan idinla wadaagi doonaa taxana aan kaga hadlayno koonkan oo Alle Azza wa Jalla uu abuuray. sidaan wada ognahay koonku weyninkii waa waxaan dhammaan lahayn mar walbana sii ballaaranay. haddaba sahankeenu waa uu dheer yahay. tiirso oo meel adag qabso. waxaan ka tagi doonaa dunida inagoo hawada sare heehaabeena. Alle sahal ka sokow cilmi walba oo aynu naqaano wuxuu salka ku hayaa su'aal isweydiin iyo sabab raadin mar walba bini'aadamku sameeyo. Cirbixiyeenimadan waa mid taalamido su'aal isweydiin iyo sabab raadin buu ku dhashay. ma ahan wax hor leh sidoo kale bilowgiisu wuxuu ahaa qarniyo ka hor. mar walba oo aynu bini'aadam haddaynu nahay madaxa kor u qaadno oo aynu baaritaanna samayno waxa inuu furmeeyay albaabada wax soo saarka ama hindisyada agabyo hor leh. inta uu socday xogdoonka iyo fahanka cirka aaladihii soo baxay waxaa ka mid ah MR-ka, aaladda maqalka fududeysa, microwave oven-ka, GPS-ka iyo weliba kuwo kale oo badan. aynu u soo laabanno sahankeena hase ahaatee intaynan hana qaadin ka hor waxaan isla eegi doonaa dunida aynu ku noolnahay. dunida waa meeraha afraad ee ugu weyn 8 meere ee la isku yiraahdo bahda qorraxda. haddii aynu damacno in gaari xawligiisu yahay 100 kilomitir saacadiiba oo aan doonno in dunida oo idil aynu ku soo wada wareegno waxay nagu qaadan lahayd ku dhawaad 18 maalin waa annagoo aan banasane. safarka waa uu dheer yahay inaad erina saar diyaarad aan duulnay haddaad tiraahdaanna waxay nagu qaadan lahayd wax ka badan 2 maalin bilaa nasiino. yacni waxaynu ku noolnahay meero aad u weyn. iska daa inaynu wada tagnaye qaarkeen xitaa waxaa suuragal ah in cimrigeenna oo idil uu ku dhammaado innagoo aanan ka bixin hal dal ama hal magaalo. hase ahaatee sahankeennan xad iyo hakad ma leh oo ina keena waxaan aadaynaa haddeer dayaxa. dayaxa markaan cirka kor u fiirino wuxuu u muuqdaa inuu inoo dhow yahay. siiba bisha markay 30 tahay waxaadba moodaa haddaan ballaacna inaan gaarno. laakiin dayaxu ma aha mid inoo dhow oo wuxuu inoo jiraa 384,000 oo kiiloomitir. waa tiro aad u badan runtii. kaba soo qaad waxaa loo sameeyey waddo toos ah. haye gaarigeennii ma istaagama ku boodnaa 100 kiiloomitir xawli ah baan ku kaxaynaynaa haddaan dhahno innagoo aanan nasan waxaan dayaxa tegi lahayn 6 bil wax ka badan ka bacdi. waan wada ognahay gaari suuragal maaha kuma tegi karno. hase ahaatee dayax haddaynu nahay bini'aadam waa aan tagnay oo weli waxaa ka muuqda raadkii Neil Armstrong oo ahaa bini'aadamkii ugu horreeyey oo dayaxa cagdhiga. ina keena haddeer waan ka tegaynaa dayaxe. markaan kor u sii soconno waxaa durbaba inoo muuqanaya bahda qorraxda oo la isku yiraahdo 8 meere oo dunidan aynu ku noolnahay ka mid tahay iyo qorraxda. bahdani waxay u muuqdaan kuwa yaryar oo aad isugu dhow markaa saa u fiiriso. laakiin runtii ma ahan kuwa aad isugu dhow. masaafo ahaan way kala fog yihiin. tusaale haddaad tiraahdo gaarigeennii ku soconayay saacaddii 100 kilomitir ayaan qaadanaynaa bilaa nasiino waxaan qorraxda tegi lahayn 177 sano kadib. cimrigeenna kuma filna runtii. diyaarad baan raacaynaa haddaan dhahno 19 sano nagu qaadan lahayd. qorraxda inta iska dayno ka waran haddaan dhahno waxaan aadaynaa Neptune waa meeraha inoogu shisheeya markaad fiiriso. haddaad dhahdo isna sidoo kale gaarigeennii 100 kilomitir saacaddii ku jiray ayaan raacaynaa waxaan ku tegi lahayn 5,000 oo sano kadib. diyaarad baan raacaynaa haddaan dhahno 600 oo sano kadib. waa masaafo runtii aad u badan. bini'aadam ahaan ma aynan tegin laakiin gaadiidka aynu samaynay waa ay tageen. gaadiidka aan sheegayno xawligooda ku dhawaad waxa weeye saacaddii 30,000 ilaa 40,000 oo kiiloomitir. qaarkood waa ayba ka badan tahay tiradaas. gaadiidyada xawliga badan waxaan tusaale u soo qaadan karnaa dayax gacmeedka mataankii lala diray Voyager 1. waxaa la diray dayax gacmeedkani 5 Sebtembar 1977. 46 sano iyo 4 bilood wax kor u dhaafaya ayuu ku socdaa xawli 61,000 oo kiiloomitir saacaddii. bahda qorraxda wuxuu kor u sii dhaafay 25 Agoosto 2012. fogaanshaha dunida haddeer uu jiro wuxuu kor u dhaafayaa 24 bilyan oo kiiloomitir. haddaad rabto sahanka Voyager 1 iyo mataankii 2 waxaad si toos ah uga daalacan kartaa bogga NASA. aynu sii soconno
markan kaliya kama tegi doono systemka qorraxda, waxaa kaloo lagama maarmaan noqon doona inaan meel iska dhigno amaba yareyno isticmaalkiisa halbeega kiiloomitirka, sababtoo ah inaguma filnaan doono. fogaanshaha ugu badan oo aynu wax ku cabiri doonno wuxuu noqon doonaa xawliga ilayska. xawliga ilayska sekonkii wuxuu ku jiraa 300,000 kiiloomitir. saacaddii baan u gudbayaa 1,080,000,000 kiiloomitir. maalinkii iyo bilihii waa ka boodayaa, waxaan u gudbi doonaa ilayska sanadkii inta uu jaro. xawliga ilayska sanadkii waa 9.46 trilyan oo kiiloomitir. aynu sii soconna haddaba innagoo fogaanshaheena kolkan ku halbeegi doona xawliga ilayska sanadkii uu jaro. waxaa inoo bidhaami doona xidigaha xidiga inoogu dhow Proxima Centauri. wuxuu magacadka haddaad leedahay sidaydoo kalena waxaad dhihi kartaa oo loo yaqaanaa Alpha Centauri. wuxuu inoo jiraa 4.2 ilay sanad. ilay sanadkii aan soo sheegnay hadduu xoogaa isaga ka dhexyaacsan yahay aan ku tusaalayno gaarigeennii ma istaagin oo aan ku wadi jirnay sida caadada ahayd 100 kiiloomitir saacaddii. waxaan xidigaa tegi lahayn Alpha Centauri 47 milyan oo sano kadib bilaa nasiino. dheeraa wuxuu haddaad dhahdo diyaarad ma raacnaana 5 milyan oo sanay kugu qaadan lahayd. aanu dhaqsanno annagoo raaceenno gaadiidyadaa dheereeyey sida dayax gacmeedkii aynu soo sheegnay ee Voyager 1. waxaan tegi lahayn xidigaa 73,000 oo sano kadib. aynu sii fogaanno kolkanna. mar walba oo fogaanshaha iyagu u bato waxa inoo muuqanaya raxan ama kooxo xidiga ah. haddaanse eegno koox xidigeedka aynu ka tirsannahay ama aynu isku systemka nahay, geeska gees Voyager 1 1 milyan oo sano ay ku qaadan lahayd inuu socdo. waa fogaansho aad u badan runtii. aanse sii karaar qaadanno kolkan 1,000 ilay sanad ayaan fogaanay. waa masaafo aad u badan runtii. hase ahaatee ma dhammo 1% weyninka galaxiga aynu ku noolnahay ee loo yaqaano Milky Way. galaxigeennan waxaa ku yaala oo lagu qiyaasaa xidigaha intay leeyihiin 250 bilyan oo xidig. xidigaha xidiga inoogu dhow ee qorraxda ah waxaa jira xidiga ka weyn kana kulul. laga yaabo inaadan weli suuraysan xidigaha weyninkooda. aanse kuu tusaaleeyo. waxaan isbarbardhig ku samayn doonaa qorraxda iyo dunida aynu ku noolnahay. mugga qorraxda markaan u qaybinno mugga dunida waxay ka dhigan tahay 1.4 trilyan oo duni inay geli karto gudaha qorraxda. haddaba suuraysa markan xidigaha ka waaweyn qorraxda kana kulul inta ay la ekaan karaan. haddii marka keliya galaxigeenna uu leeyahay wax ka badan 250 bilyan oo xidig, xidig walbana uu leeyahay bahmeerayaal ah sida qorraxdeennoo kale, ka waran koonka intuu la ekaan karaa. koonkan aynu ku noolnahay waxaa la sheegaa inay ku yaalaan wax ka badan 200 bilyan oo galaxy. galaxy walbana uu leeyahay wax ka badan bilyamaad xidiga ah. weynaa badanaa oo ballaarana inta dhahno kama gudbayno. aan kuu turxaan bixiyo tiradaa aan sheegay annagoo ka soo qaadayna dunida inay tahay hal galley ah oo kale. galaxigeenna Milky Way wuxuu noqonayaa beer dhan oo wada baxaysa. koonkan weyninkii haddaba kolkaa adigu suurayso. isku soo wada duubo bini'aadam ahaan koonkan weyninkii inta aynu naqaanno iyo inta aynu saadaalinayba haddaan ka nimaanno. waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo gunaanado galaxiyadan tiraha badan, xidigaha tilmaanta dheer, meerayaasha tidcan, dunidan toddobadeeda qaarad, inta noola tuuran, allihii abuuray, arsaaqoo ilaasha, addeecna oon dhahno Allahu akbar, Allahu akbar.